بسم الله الرحمن الرحيم. ولمتي وعنا وناكسن مال كستون دغه هانيسان وبرنامج gaara oo ku saabsan shirkadda lagu magacaabo Guuleed Real Estate oo fadhigeedu weyn oo xarunteedu weyn ku taalo magaalada Ankara xarumo waaweyn ku leh isla dalka Turkiga. Shirkadda Guuleed Real Estate sida magaceeda ka muuqata waxay muujinaysaa ama tilmaamaysaa shuruudo ama arrimo la xiriira dhinaca guryaha. Guryaha waa farabadan yihiin waa kala baaxad weyn yihiin hadday tahay dhismaha dhul bannaan haddii ay tahay guryo dhisna oo la iibinayo haddii ay tahay guryo la kiraynayo iyo haddii ay tahay buuxshirada ama ganacsiga qaybihiisa kala duwan annagoo gudageli doona qaybaha dhismaha la xiriirin ayaan imika waxaan ku sugannahay xafiiska labaad ee shirkadda Guuleed Real Estate. xafiiskan shirkaddu sida gudoomiyadu ii sheegay uu faahfaahin doono waxay ugu talagaleen bulshada Soomaaliyeed maadaama aagga ay ku taalo ay guryo ka gateen taasina ay muujinayso soo dhaweyn dadka la soo dhaweynayo baahidoodana la doonayo in la qabtiro waxaa suurtagal ah noqotay iyadoo barnaamijkan ku dheehan doontaan muuqaallo ku saabsan dhismayaasha kala duwan ee shirkadda Guuleed Real Estate inaan la sheekaysto Farxaan Maxamed Dowre oo ah gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate oo runtii barnaamij ballaaran oo Universal ka daawateen intii fursad u heshay aad aragteen xafladiisa oo bandhigida iyo soo dhaweynta ee ka dhacday hudheelka weyn ee Saafi ee ku yaala faras magaalaha ama bartamaha Ankara. dabcan waraysigan wuxuu noqon doonaa mid dadka faahfaahin guud ka siiya iyo sawir guud waxa ay tahay Guuleed Real Estate. Farxaan waa soo dhaweynaya shirkadda Guuleed Real Estate ama ha noqoto xafiiska weyn ee ku yaala magaalada ama ka imika aan farano. bismillah waa maasantahay wariga Madhiga waxaan rabaa inta aan ka warbixin inaan fursaddan uga faa'iideysto inaan Universal madaxdeeda iyo shaqaalaheeda oo ka mid yahay aad ka mid tahay adiga oo ah Cagta Xaaji inaan kaga mahadcelino runtii inaad na garab istaagteen oo Universal oo garab istaagay aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa inay la bareen dad badan oo aan aqoon fursaddaasna waxaan siiyay Universal aan ku gaarsiino ummadda Soomaaliyeed wax badan oo anaga ugu jiray oo awood ama maarta rabitaan ah ummadda Soomaaliyeed gudbino inta ka bacdi haddaan soo laabto Guuleed Real Estate sida aad niyuusidii aad ku maqasheen looma sameyn in lacag laga sameeyo maadaama aan ahay dad Soomaaliyeed mas'uuliyiin ah xilkaas ah dadkii deegaanka u soo horreeyay aan ka mid ahayn waxaan xoogga saarnay inaan dadkii Soomaaliyeed service ka helno oo aan noqono odayaal dadka ka soo horreeyay dadkii dib-u-dejin u sameeya waxay ka fakaraan aysan noqon lacag مثلا هذا حفيز كنا نشوفه وحفيز كلا بعض عن كفر نايم مجال أنكرة سيدا أدريني كرتصنت الكمية الحكومية حافظ واحد دورت أمضي الصوماليات ووضع كلمة يقول كيف سدان مركي يقول كيف سدان قصب وحنا نقول مطين أديك كذا مكانها ما دام جديدا ما يتذكرنا أديكنا وحن حفيز كفرني تذكر كلية كيف سدان إن سيرفس كراينه وضد ترجمة كانوا سبا يده الله ضمن مركوف كم دي هاي أديك أمضي الصوماليات تركيا جوجا أما قوة صعبة ومترقى شيء Guuleed Real Estate إن يجارسيسو يحافظ على كمية هاي وحقبت كشركة وبلارية هاي قيب والبناء حكاها ضدنا ما كمان السؤال أو أردت أن تمشي وهكذا ما دام لوفر يحافظ كان ذاتك السؤال عليه دول هذا إن جوجنا ما حافظ على الجورية بدل كجتان ترى الجورية هاي جتان يكون كوها من محل كتير كتان سيدا دريم كرتو وقت وضع واحد وصل وقت اللو شركات واحد جبتها وقت اللو guryo badan iyaan iibinay guryo badan dad badan ku tijiro sameeynay especially hadda xaafadan kamid maan xaafadii hore loo degan muddo bil gudaheeda waxaan tijiro sameeynay ilaa 12 qoys waxa hadda soo socda oo ilaa caawa ilaahay been imaan doona dad ku address karaysan xaafadan oo loo diray picture-adii iyo macluumaadkii shaqadeena waxay tahay ma aan dadka inaan ayaga guryo ka iibino waa inaan casuumad u dirno soo dhaweyno ka bacdina waxay aan u dirnay aan soo bandhigno ay arkaan shirkadii guryaha aan tusno oo macaamilaan marka uu ogaado waxa uu iibsanayo waxa ay yihiin isagu iibsanayo marka dad noocaas soo socda marka waxaan rajayn doonaa xaafadan 2 bilood gudahood ilaa 100 qoys ay degi doonto insha Allah taala dadku markay guri maqlaan iyo Turkiga way ku haminayaan sida aan ogahay hadda xaafadan aan joogno kale oo dabcan ay ku yaalaan waxyaabihii nolosha muhiimka u ahaa sida dukaamadii isbitaaladii iskooladii iyo gaadiidkii dadweynaha labada qolob kale
saddexda qoloo kale afarta qoloo kale dadaa waxay markiiba isleeyihiin cagta iyo farxaan may sheegaan labada qol waa imisa xaafadda saddexda qol waa imisa afarta qol waa imisa xalkaa ka wada waa su-aaladeeda fiican waa su-aasha ugu badan la weydiiyo haddaan nahay Guuleed Real Estate iyo maaragtay shaqaalaheeda iyo maamulkeeda waana su-aaladeeda sahlan xaafadda waxaa ku yaala guriga ugu sarreeya oo $100,000 waxaadna ku heli kartaa guri 3 qol iyo fadhiya $28,000 $28,000 inta u dhaxaysa waad dareemi kartaa $100,000 iyo $28,000 marka adiga tabartaada iyo dooqaad ay ku xiran tahay guriyuhu wax kala lacag badan iyo kala quality badan yihiin boosashkay ku yaalin adeeg uu haysto guriga isteeda ma guri dabaashi iyo jiilki iyo wax walba miya mase waa guri keligiisa oo normaal guri kore oo value fiican haysta oo hawo fiican karamiya mase waa guri dhulka hashadara waxyaalahaas ku lacag badan yihiin ma guri koobana mase waa guri ballaaran oo fadhigiisu weyn yahay jikadiisu weyn tahay waasaca wuxuu kala lacag badan yahay materiyaalaha ku jira waa noocay waxaad dareemi kartaa xafiiska maanta ku jirno oo qiyaas ka bixin kartaa materiyaalaha ka samaysan yahay waxaad dareemi kartaa xafiiska $5,000 kaa siin karin laakiin waxaa laga yaabaa xaafadda inaad ku aragto xafiis $5,000 istaaya sidaas darteed macnaha waxa weeye awooddaada mise ku reebi dooqaaga lacaya awooddaada la tasho kusoo dhawo waddanka walaalaha nahay ee Turkiga sabab allaala sababtii aad rabto inaad u degtana way ku soo gelaysaa وهذا قريها إمك عم بغض ولا بينلا كريم طبعا وحب بدي قريه استسعاد وحدا كرتدول هذا الصد وليلا بالعالم بالمثل قريه وجوهر وهذا سلالة السفر كان مسعود كان عم كبلون يدو كاميرا دول مسعود وقول عين كين وأقول أنا كهرت أنا تيجي دونا لكن وأقول مدة صلاة فرح دون مركب هلا هاي مركب تجنوا عن هذا هلا داود مركب هلا داود وهذا داود يعني أدو ما تسيا قدومية فرحان محمد دورة طبعا ورئيس يكلا يجري ورئيس البرنامج كأوصاب سنتفاهين إرادة قابك يسد الوجود يكرر تركيا قفك عن شرع كله هني الناس ورئيس يروح كله نقلة تبكير دولة بإذن الله كريم قدومية كحجينك عن إرادة شركة جوليد ريال استيت وعبد الفتاح الشيخ حسين وعن ضد بدن كعسبي إمك عن كل رقم سنة ما هذه اسمها عن لجهر دعين لكن عن سلايا هاي wax fiican baa ku duugan oo aniga lafteeda ham igeli kara anoon awal ku talagelin inaan ka qayb qaato aad baad mahadsantihiin waa Universal TV iyo safarkoodii Ankara iyo Guuleed Real Estate farxan intaynan tigin ismii hadda aan ballan qaadnay inaan tigno halkan waxaan ka arkayaa boorkan furayaal bal ma sharaxi kartaa dadka daawanaya waa aad iyo aad u maasan tahay waxa halkan aad u jeedo suran waa furayaal waa guryaha xaafadda ku yaala qaybo ka mid ah laba dhig kara waa iyagoo dhan qaybo ka mid ah furayaashoodii weliba ma aha furayaal badan oo la qaybshay oo xabada meel la suray mid walba waa hal guri furihiis waa inta laga soo galay furayaashii kale oo qolosha hoos yaalaan laakiin waa bildiga halka furaha ku galaysa bildiga maaragtay kow marka aad bildiga inaad gasho furi koobaad ku galaysa way ka bacdi aad geli doontaa furayaashii qol walba iyagoo meel loogu talagalay ku jira oo lagu xifdiyay markaas aad qolka u furi doontaa macaamiisha marka waa furayaashii xaafadda aan joogno guriyihii iibka ah farxaan iminka waxaynu joognaa sida aan qiyaasayo dhismihii dheeraa aad ku bilaabaysay in dadku ay arkaan bannaanka waxaanu ku soo aragnaa hadda sida barnaamijka laga dheehday sawirka iyo waxyaabaha laga filayo ee laga heli karo iminka gudahaan soo galnay meeshan waa meel bannaan hadda waa dhul fidsan ilaa iyo kor maxay tahay meeshaan maxaa loogu talagalay meeshaan laga bilaabo meesha aan joogno ilaa halkaas ilaa waxa aan jeedo waa shopkii loogu talagalay in laga dukaamaysto korna waa baarkeeriga gaariga baabuurta wiishku u saarayay oo ay kor baabuurta la dhigayay waxa la waxa u jeedaa waa shopkii waa dukaamadii waa supermarketkii waa waaga iminka kor baynu fuulaynaa si aynu u aragno sawirka dhabta ah ee dhismahan dheer waa maadsantahay iminka waxaynu soo galnay sidaan qiyaasayo dhismihii aad waraysigaaga hortiisa ku sheegtay oo ah qayb ka mid ah gurigan dheer ilaa 16 dabaq dabcan dad badan ayaa sugaya gurigaas aad sheegto tiri markii hore ma hor dhacayo siduu yahay xaaladiisa qolalku waxa ay yihiin aniga lafteedana hor dhaco diyaar uma ihin
marka waxaan isu daynayaa adigoo farxaan ah iyo kaamirada universal inaad bal halkaa sharaxaad naga siisaan aniga iyo dadka kale ee barnaamijka daawanaya markaad soo wareegtid ayaan kulmi doonaa aniga adigu haddii alla ka dhigo soo dhawo walaal gurigan wuxuu ka mid yahay guryaha ummadda Soomaaliyeed ay gadatay qalabaysatay hadda marka waxaan rabaa inaan kuu tuso qolqol sida gurigan uu yahay gurigan wuxuu ka kooban yahay 3 qol iyo fadhi laakiin wuxuu leeyahay activity aad u tiro badan halkaan waa qolkii dhaqdhaqaaqka halkaan waa makiinadii marka lagu dhaqayay qaadanaha soo loogu talagalay inuu qofku ku shubto dharkii wasaqda ahaa halkaan waa feeradii marka qolkaan waxaa loogu talagalay dharka kaliya ama feeraha ama qalanjiso ama waxaad tidde waxaan gelaynaa jikadii waa aragtaa waa diyaarsanta wax ka maqal ma arko waa qadadii waa meesha loogu talagalay qadada halkan waa tvgii yani waxaa weli ku jira waa jikadii kaliya qaybtan waxaa loogu talagalay waa qaybtii baakaysiga iyo casiriyaha asaguna tvgiisu leeyahay balakoonkan u leeyahay waa ku xiran yahay balakoonkan banaanka markaad joogto waa ujeedaa gudaha markaad ku jirto wax ku jeeda malaha marka intaan waa jikadii daban inaagaad ku aragtaa masha allah waxaan gelaynaa qolkii koowaad qolkan saa ujeedo hadda fadhihaan loo isticmaalaa oo hadda ugu leeyahay laakiin fadhigi maaha waa qol caadi oo jiifa tvgiisu leeyahay arbaajadiisa iyo qaanadihiisu leeyahay marka normaality waa qolkii jiifka ahaa laakiin hadda fadhiga yaalla waxaan gelaynaa marka fadhigii caadiga ahaa kan waa fadhigii tvgiisu leeyahay waa qolka salonka fadhigii halkan waa qadadii yani fadhigii iyo qadadii iyo isku yahay halkan waa musqusha caadiga ahayd oo loogu talagalay guriga waatana dooshkeedii iyo qaybaha sidaasay u dhisan tahay runtii aad ujeedo materiaalaha ka samaysan tahay waa alaabta noocaas waaye qolkan waa qolkii carruurta inuu qolka carruurta u diyaarsan yahay armaajadiisu leeyahay halkan wuxuu leeyahay meel fadhiisto qaybtan waxaa loogu talagalay waa wiitowgii anaa badaalaya balcabaa ku joogsad maasha allah soo dhow waa qolkii carruurta maxaa banaanka cayaartiisii lagu soo naqule qolkan waa chiefkii master roomkii waa master roomkii waa sariirtii iyo kobadiinadeedii waa qaybtan kale intaan chiefkaas la wata maxaa balakoonka usii furantaha iyaduna musqul u gooniyuu leeyahay qolkaan musqul macadooskii maca qubayskii isku ah iyo qolkaani leeyahay halkan waa qaanadihii armaajadii dharka kabihii iyo wax alla wixii aad rabtid inaad halkan kusii afgaraysato ayaad dhigan kartaa marka gurigaani saas u samaysan yahay markii lasoo koobo waa 3 qol iyo fadhi laakiin xaqiiqatan wuxuu u dhigmaa 4 qol iyo fadhi u dhigmaa weynkiisa wuxuu ka kooban yahay 160 kuwaataraad isku wareega way gurigaani oo net ah oo aan balkoonada ku jirin markii balkoonada lagu diro 190 mitir kudarbaad isku wareega waxga iminka waxaad sharaxday gurigani qaybaha uu ka kooban yahay dhismaha dheer oo ka mid yahay wuxuu tusaale u yahay
guri kasta dhexdiisa sida ay tahay gurigaan hadda la fiirsaday oo aad sharaxday qofka jeclaysta ee jecel inuu ogaado qiimaha sheegi kartaa mise beec waa kabanaas laa baas wixii la dhihi jira weeye waa ku dar iyo ka dhin waa run marka gurigan marka horta waxaan rabaa inaan sheego guri kasta oo ka mida buildingan oo 3 qol iyo fadhiga qofkii iibsada sidaa noqona waxaan u ballan qaadayna inuu sidaas yahay waa qodobtaasi qodobka labaad qiimuhu maaha qiimo ku cayrinaya laakiin waxaad dareemi kartaa guriga inuu yahay 5 star aad iyo aad waraysigeena hore waxaa ku jirtay guryaha waxaa jira kuwa 100 kun waxaana ku jira kuwa 28 kun inaad xusuusato aad iyo aad guryahaas buu ka mid yahay waa hagaag tusaale kale aniga fikrad kama haysan aniga cabdi xaajiya xayisiinta markaan samaynayay in guriga la gado markii aanu xafladaha samaynayna in guriga la gado hadda gurigan iminka waa soo galay waa daawaday waan arkay sida dadka Soomaaliyeed iminka u daawadeen laakiin waxaan uga duwanahay waa dhex taaganahay marka nafsadeydu ay jeclaato reerkayga aan la jeclaado gurigaas oo kale yani qiimaha aan ku heli karaa waxaad leedahay waa qiimaha aan eriyey qiimaha aad ku heli kartaa waa qiimaha aan ku eriyey ku soo dhaweynaya weliba waxaa kuu furan macaamil aad iyo aad u weyn oo gurida real estate aad iyo aad waa kuu furan aad iyo aad annaga qof noo yimaada oo guri la'aan maba laabtaba aad iyo aad qof allaala qofkii guri jeclaada furan siinaa si allaala siduu lacagtaa isaga bixin karo uu isaga bixiya guriga allaala guri uu jeclaadana waa farta ka saarna ay furiisa aad iyo aad dabcan barnaamijkeenu waa noo socdaa meelo kalean tegi doonaa laakiin waxaan ogaataa adoo ah guddoomiyihii guuleed real estate dadkayga aan ka dhasho Soomaalida waa aqaan adna waa taqaan waxay isleeyihiin labada nin oo isag taagan may gurigaas na tuseen wax uu noo sheegaan aan fikir ka qaadanay arrintaa ka hor waa sahlan tahay guriga waxaa ka qof Soomaaliyeed qalbaystay wuxuu ka mid yahay buildingan weyninka badan si fiican buildingan wuxuu ka kooban yahay 4 qol iyo fadhi iyo 3 qol iyo fadhi si fiican sideeda caadiga 3 qol iyo gurigan oo kala fadhigiisa normal waa 75 kun ilaa 70 kun u dhaxeeya ayuu u dhaxeeya guriga sidana waa hagaag daawadayaal weli waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga ee Universal iyo safarka Ankara iyo sharikadda Guuleed Real Estate oo iminka booqashadii aanu ku jirnay sidaad aragteen dabcan gurigan oo hadda la tilmaamay oo sidaad aragteen u sharxan oo qof Soomaaliyeed oo gatay Allah baarat u barakiyo cimri oo ku deganaado kuna farxo Allah siiyo in dadka kale Soomaaliyeed ay u furan tahay inay halkaa yimaadaan weli waxa kale oo farxad gaar ah in meeshan iminka aan taaganahay uu ka soo horjeedo masjidkii oo aadaankii la maqlayo oo iminka markaan imaanayna aadaankii baa socday waxa kale oo ka soo horjeeda dhismaha aan jeclahay inuu ka sheekeeyo oo ah dhismaha hadda socday iska kaashanayaan midowga Yurub iyo dalka Turkiga oo ah wadada marka la gooyo una muuqdo qofka halka jooga dhismahaas muxuu yahay waa su'aaladeedu fiican waana su'aalaha la weydiiyo ugu badan meesha ma leedahay iskool looga hadlo luqada Turkiga ah buildingan waxa ummad Soomaaliyeed oo badan oo guriga ka iibsaday ay ku doorteen waxa hortiisa ka socda iskool weyn oo ilaahay iskuul ah oo isla maalgelinayaan Yurubiyaanka iyo dawladda Turkigu waxa ku dhagan oo dhabarka ku haya oo aan hal darbi u dhaxayn iskool Islaamiga iskool Islaami markaad maqasho wadanka Turkiga waa islaam markaad maqasho laakiin waxaad ogaataa inuu wadanku Yurubiyan standard yahay iskoolaadkiisu ay u badan yihiin sida iskoolaadka Yurubiyaanka laakiin dawladda Turkiga oo Erdogan hogaamiyo waxay awood saartay in iskool Islaamiga inay ka suura geliso iskoolkaas oo wiilashu ay jimcaha aadaan xilliga break uu ku aadan yahay xilliga salaadaha gabdhuhu ay xijaaban yihiin oo qamaarkoodii ay wataan gabdhihii wiilashu kala soocan yihiin salaadaha dhan la tukado xilliga breega iyo ku dhagan marka wuxuu isku leeyahay masjidkii mid gudaha ku yaala midka aad aragto ka soo horjeeda oo maanta duurkan ku tukanay iskool Islaami oo dhabarka ku haya iskoolkii internationalka ah oo asagana hadeer dhismihiisa aad aragtay oo inaga aad ku aragto socda wuxuu leeyahay halkan waxa la activity-da qofka bilaadanka u baahnaa guriga hoostiisa guriga asaga magaalada kaligiis waa gartay hoos ku jira haday aan leh dabaashi oo rag iyo dumar jimkii oo rag iyo dumar kullaysadii oo rag iyo dumar meesha carruurtu ku ciyaarayeen masaajidkii iyo supermarketyadii iyo maqaayadii intuu waa ku yaal
وهجال وحن داود يا رجيريا dad badan oo muuqaalkan arkay dhismahan inay ka faa'iideysan doonaan intii markaa calaf u yeelata gudoomiye Farxaan iyo guud ahaanba shaqaalaha Guuleed Real Estate ay diyaar u yihiin inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan waxay maalmihii aan joogay ayaan arkay sida airportada looga soo qaadayo dadka ka imanaya Yurub iyo Ameerika ilaa Soomaaliya loo tusiyo guryaha oo ayagoo faramaran aan laabanaynin dabcan barnaamijkan waa barnaamijkeeni waxaan arki doonaa qaybo kale oo soo socda aad baad noo maatintiin sidaad u daawanaysaan barnaamijka iyo Guuleed Real Estate su'aalo badan dadku weydiiyaan oo iskool English ma jira marka xaafadan waxay uga duwan tahay xaafadaha kale iskoolkan hadda la dhisayo oo halka sawirka waa ka qaadan kartaa yani dhisma ka socda waxa weeyaan waa iskool ay sida u jeedo Europeanka iyo dawladda Turkiga isla dhisayaan dhismaha ku xigana waa iskool Islaami waaye weli waxaynu ku guda jirnaa socdaalkii Guuleed Real Estate iminka waxaad deehateen gurigii la yaabka lahaa ma sha Allah saddexdii qol ee aan ka sheekaysanay aniga iyo Farxaan gudoomiyaha Guuleed Real Estate dadku inta badan xayisiinta iyo meelo kale waxay ka arkayeen hadallo la isla dhex marayo oo ah in guryo ay jiraan 28,000 ilaa 30,000 oo laba qola guryahaas waa noocee ay dadku isweydiinayaan halkee bay ku yaalaan ayay isweydiinayaan iminka waxaynu joognaa aaga ay ku yaaleen waxa ila taagan waa Farxaan Maxamed Doore gudoomiyaha Guuleed Real Estate gudoomiye meeshaanu iminka taaganahay waa meeshii 28 ilaa 30,000 intaanan gudaha guryaha gelin mid kamid ah si aan u aragno meesha ay ku yaalaan maxay dadku ka faa'iidi karaan ay ka filan karaan bismillah waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan xaafadan waxay ka mid tahay xaafadaha dabcan xafiiskina waa noo dhow yahay gurigii qasriga ahaa ama estatekana waa hadda ka nimid xaafadani waa isla xaafadii wax ay uga duwan tahay xaafadii ma jirto markii laga reebo quality guryaha oo kala koreeya kan waa iskuulkii dugsiga hoose dhexe sare si fiican kan waa masaajidkii lagu tukanayo kan waa isbitaalkii kana waa gurigii ay ummadda Soomaaliyeed guryaha ka gateen oo ah labada qol saddexda qol iyo fadhiga oo hadda aan geli doono kana waa dukaanka ugu raqiisan waxa la yiraahdaa magacaas u leeyahay 101 aadiyan waa dukaanka ugu raqiisan ee wadanka Turkiga wax laga gato ma sha Allah dawladdaas kale aadiyan bildayaasha u jeedo aadiyan halka waxa ku yaal oo taxan waa farmashiyaasha halkaas ku yaal waa farmashiyaasha si fiican halka waxa ku yaal waa baarka caruurta ay ku ciyaarayeen ilmaha yarka halka waxa ku yaal baarkeeri way waa meesha la fadhiistay halka waa xarunta booliiska hadda la dhisi doonaa si fiican xaafadda sidaas يا guryaha ku yaala gurigan qaar kamid ah waxa laga baxay $8,000 wala gali doona wala saddex qol fadhi qaar kamid ah waxa laga baxay $30,000 qaar kamid ah waxa laga baxay $45,000 waa gali doona waxay kala sareeyaan waa sheegi doona lacagtooda laakiin waxaad u ogtahay inaysan cagma dhiga waxba isku jirin oo ka gurigii dheeraa qasriga ah xafiiskii waa ka guriga ku yaalay dadkii aan u furnay waa dadka halkan degay aadiyan waa xafiiska aan ugu talagalno service gareynayno waa dadka guryahan halka degan aad baad maadsantahay iminka waxaan daawadayaal aan geli doonaa guryaha saddexda qola 28,000 ilaa 30,000 taasoo aan filayo dad badan inay hanqal taagayaan oo isleeyihiin qiimuhu waa fiican yahay guriyuhu sidee u yaaleen Farxaan bulshada tus wari cagba dhiga soo dhawow gurigan aad u jeedo wuxuu ka mid yahay guryaha la iibsado hadda مثلا كليتان كسو قلبي waa balfoonki waa meeshii albaabka laga soo galay albaabka 28,000 guriga 28,000 ka rabaa guriga si fiican idintis qof Soomaaliyeed ka gatay si wanaagsan samar looga ku dhisi doona hadda ilaahay si wanaagsan guriga waa kan waxa xasuusta inuu guriga laba diftiray laba wish dhinaca وكا وش دواكاس وش دواكاس كيف كلا دواكاس وكا وش كلا ما أنت بقى كل جال قول شامبيانو والله لفتي قوي لفتي كوفرت أدية وكلو لي شرطتي عمرت السيجار وعليه أوكي ربع إكسرسايز أدية وهذا نتصل لنا قولي سيدنا ما دام أن أريد كسوق النهار قولي أتكو شبتي سيدنا لا تنك كل يصدق كل ومركان بناك جوجنا أجري isbitaalkii masaajidkii iskuulkii baarkinkii farmashiigii dukaamadii ugu raqiisanaa cuntada ee dawladdu lahayd haddii bannaankii dadka uu soo jiitay aan gudaha aragna xaal ku sug yahay dabcan gurigan hadda aan gelayno waa guryaha 28,000 kuna waxaan dareemayaa waxa aad sheegtay inaan anugu kala yidhi adigu innaga aad ku aragtay aad waa mahadsantay
iminka halkaan ka bilownay halkaan ka bilownay si yare sushi caadiga ahayd oo qubayska sushi caadiga qabiiska waa musqusha labaad sushi labaad waa guriga 28 kuna gurigii chiefka ahaa qolkii weynaa master roomka guriga hadda iibsan yahay mise guriga Soomaaliga waa la Soomaaliga qolka weyn master roomka waxay hooyada haddii aan ku fasax ku maqayn hooyada keligeed haddii labadooda joogaana iyo weliba balkoonkii oo laga arkayo banaanka balkoonkan uu leeyahay waa gaar waxaan leeyahay qolkii carruurta ama martida waa qolkii carruurta ama martida sida uu sheegay farxaad carruurta hadday laba tahay haddii ay hal yihiin iyo martida markaa soo hayto soomaalidu martisoorka way ku fiicanta qolkii saddexaad waa martida ama carruurta waa qolkii saddexaad martida ama carruurta maasha allah waxaan soo aragnay qolka weyn qolka carruurta iyo martida qolka carruurta iyo martida waxaan geli doonaa jikada marka iminka maadaama naftu u baahan tahay raashinka kariskiisa waa jiko baaxad weyn sidaan ka arkayo bilmatal qalabkan waa la xiray dhulkan waa dhul u bannaan jikada soo ma halka waxaa ujeedana goobtii talaagada waxaa dhigayaa farajeerka shirkaddu kuma xirto ee qofka guriga iibsada ku xiran aad iyo aad jikadii qasaalada weelka lagu dhaqo qofka ku xirta waa u bannaanta kugarka waxaa spiiska wax lagu karinaayay waa diyaarsan yahay maasha qaaca qaadaysay waa diyaarsan tahay haanti gaaska waa la keenayaa shirkadda ku xiraysa hiitarka shirkadda ku xiraysa qaaradahaas marka qaaradaha waa wada wiish kacaya dhammaantood oo kacaya kulliga waa wada wiish ayagaa soconaya waa taabanaysaa kaliya yani systemaa ku jira waa taabanaysaa ayagaa soconaya wagaag wuxuu leeyahay intaadan dhexin balakoonka intaan la eg waa balakoon aad weyn maasha allah balakoonada waa la xirtaa haddaad iga ogolaatana waxaan ku tusi lahaa isagoo cidda qoyska nagu dhogan u xiran wagaag oo dahayle farxaan markaan fiirino hadda gurigan qolal badan aragnay jiko weyn baan aragnay laba musqulood baan aragnay gurigan muuqaalkiisa ama view waxa loo yaqaano marka la fiiriyo wax badan baa laga arkayaa gurigan ma 28,000 oo dollar oo keliya guriga 28,000 dollar lagala baxay guryo lamidana dadku hadday u baahdaan way helayaan diyaar 30,000 28,000 gacmo furan aad iyo aad buu gurilaan laaban ya gurilaan laaban aad iyo aad wuxuu ugu dhiirigelinayaa guri la'aan halaaban laakiin iyagu gurigii hore la yaabka lahaa kii asaga ah ayaa igu taagay xaaladaas ka war waa sida aad sheegtay nin walba taagtiis iyo tabartaada u tagta aad iyo tabartaada ku xiran aad baad umahadsan tahay waa universal TV iyo socdaalkii cagta xaaji iyo guuleed real estate waxaanu weli bartamaha uga jirnaa barnaamijkii guuleed real estate iyo sharikadaha kale ee turkiga la shaqeeya hadda waxaanu nimid meel bannaan oo hadda la diyaarinayo dhismaheeda oo macnaheedu ay tahay waqtigan aan joogno ayaa la bilaabayaa meeshaanu siday noqon doontaa siday u ekaan doontaa qolalka iyo dhismuhu intee la ekaan doonaa waxaasoo dhan waxaan kala sheekaysanay mustafa oo ka mid ah ragga ganacsatada ee turkiga gaar ahaan dhinaca guryaha waxaa ila joogay isaguna guddoomiye ku-xigeenka sharikadda guuleed real estate mudane cabdifataax sheekh xuseen oo dabcan xagga tarjumaadana naga saacidaya marka hore mustafa waxaan weydiinayaa meeshan bannaan ee aan joogno dhismaheeda in nusuu qaadanaya maxaase laga dhisayaa maxaa dadku ay ka arki karaan maxaa laga filan karaa Somalilere artı %10 iskonto olma kaydesiyle Somali kardeşlerimize inşallah hizmet sunacağız. meeshaan waxaan ka dhisaynaa guri ka koobnaan doona 12 dabaq oo ayna ku jiraan qaybtii dabaasha qaybtii baarkinka qaybtii saawuunaha iyo qaybtii siboorka ay ku jiraan 500 oo mitir isku weer ah oo ay yeelan doonaan dadka dhismahaas degaya oo hoos ugu taala oo intaas oo ka wada dhaxayso sharing ah ay ku yeelan doonaan ayaan ka dhisi doonaa waxaa intaa ku sii darnay uu yiri in si khaas ah dadka Soomaalida ee qaadan doona buildingka guryaha ka qaadan doona 10% commission in hoos looga dhigayo qiimaha kala iibinaya guryaha wahagaag marka la fiiriyo gurigani waa 12 daqiiqo waa guri dheer qolalkiisu
ma hal qolba ma laba qolba ma saddex qolba ma afar qolba dadku waxay rabaan inay ogaadaan dhismaha inta uu socdo si ay uga faa'iidaystaan arrintaa ay Nasıl bir şey olacak? Bir artı bir mi olacak? 2 artı bir mi olacak? 4 artı bir mi olacak? 3 artı 1 ve 5 artı 2, 5 artı 1 olmak kaydıyla artı Wuxuu ka koobnaan doonaa gurigan 4 qol iyo salon iyo 5 qol iyo salon iyo 3 qol iyo salon waxaa intaa dheeraad ku ah inuu u dhow yahay dhammaan markasyada meesha laga soo adeegto ama santarka magaalada 10 daqiiqo lugaysna ugu tagi kartid 5 daqiiqna aan baabuur ku tagi kartid marka la fiiriyo hadda meesha aan joogno dhismayaal dhaadheer ayaa ku yaala tusaale mana sii kartaan dhismayaashan mid ka mid ah oo ku naqshad ahaan kara buralardan bu proje gibi bir binaları var. binamıza ait artı animasyon içinde gezmek kaydıyla animasyon yaptırıyoruz. Evet. Biz size bunu sunacağız inşallah. Siz de internetinizde ve sitenizde İnşallah işte wuxuu leeyahay animasyon waxaan soo saarnay program dhismihii guriga oo diyaarsan oo ay dadka caadi u dhex marayaan iyadoo internetka si toos ah aan u gelin doono systemkaas halkaasna laga arki doono telefishinka hata uu isticmaali doono laba beri kadib uu soo baxaya habka uu noqonayo guriga marka uu dhamaado hase ahaatee guryahan hadda dhisan uu ka sii fiicnaan doona habkay u dhisan yihiin dhisma ahaan ama dabaq ahaan waxbuu dheeraan doonaa oo iyagu hadda aysan lahayn waagaag marka la fiiriyo qaabka sharaxaadda iyo sida wax noqonayaan waa la sheegay inta dabaqu noqonayo waa la sheegay adinku waxaad tihiin Guuleed Real Estate iyaguna sida Mustaf waa ragga Turkiga ee iyaguna guryaha haysta oo sidiinoo kale wax sameeya xiriirkiinu dad badan buu anfacay marka gurigan oo kale hadda marka ay idinka soo dalbadaan adiga asagana aad ka sii dalabtaan ama aad leedinka wada dalbado wada xiriirkiina dadka sidee ugu fududaanay Guuleed Real Estate çokkan inşaat olarak çok inşaat. aranızda çok güneş inşaat olarak Tek firma sizin firmanıza ulaşmak kaydıyla Evet, tekrar biz sizinle muhatap olup evet. o şekilde Wuxuu leeyahay shirkad ahaan marka la yiraahdo magacyada kala duwan laakiin shirkaduhu waa mid shaqaduna waa mid ay ka wada shaqaynayaan wayna shaqayn isla yihiin shar amarka iyo go'aanka wixii guryahan lagu iibinayo go'aankeeda waxa iska leh shirkadda Guuleed Real Estate aad iyo aad buu u mahadsan yahay Mustafa adigana waa mahadsan tahay daawadayaal hadda waxaynu tagi doonaa biindilaa kariim dhismo u gaara Soomaalida oo kaliya oo awal aanan arkin dhismo Soomaalida u gaara kuwa hore aan u aragno laga sheekeeyay dhammaantood Soomaali iyo dad kala gatay kan laakiin Soomaali ay u gaar u yahay u soconna biindilaa kariim Universal TV iyo socdaalkii cagta iyo Ankara iyo Guuleed Real Estate waxaan iminka taaganahay dhisme kamida dhismayaasha dhamaadka ah طبعا waxaa ila socda Cabdifataax Sheekh Xuseen gudoomiye ku-xigeenka Guuleed Real Estate dhismaha dhamaadka iminka aan halkiisa taaganahay muxuu dhismayaasha kale uga duwan dhismahan waa dhismo gebi ahaan ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed shirkadda Guuleed Real Estate iyo shirkadda Akbash Inshaat oo iskaashanaya ayaa waxay bilaabeen January 2deedii waxaana insha Allah Ilaahay hadduu idmo ballan qaadnay 30ka bishii 8aad inaan furayaasha wareejin doonaa Abdullaahi marka waxay ka dhigan tahay 8 bilood in lagu dhameystirayo waa in mise qol uu ka kooban yahay dabaqyada marka fiirsi wuxuu ka kooban yahay normal 3 dabaq iyo hal dabaq oo guryaha ugu sareeya ee afarta qol iyo salonka la iskaga dhaxbaxayo marka sidaas wuxuu ku noqonaa afar dabaq iyo parking hoose oo baabuurtu galayaan aad iyo marka guryahan waa la wada gataa kulli waa la wada gatay laba guri bisa ka dambaysa waxa kooban waxa wada gatana waa Soomaali oo 16 guri laba guri bisa ka harsan 14 kale waa la iibsaday waxaan rajaynaynaa labada kale inay Soomaali noqdaan si ay u noqoto xaafadda Soomaalida insha Allah taala waa sidaa ku rajaynahay Abdullaahi waxa ka soo horjeeda malcabkii meeshii ciyaaraha gobolka meeshii carruurtu ku ciyaarayeen marka waxa waaye qofka guriga meesha ugu sarreysa degan waxay ka dhigan tahay ciyaaraha gobolka markay socdaan inuu si toos ah ugu jiraan oo ka fiirsan karo ma sha Allah waa reeraha aad u nasiib badan reeraha Soomaaliyeed ee halkan iibsaday mar haddii qaybtii carruurtan ay ka soo horjeedo garoonkii kubadda cagtana uu ka soo horjeedo waxaan aan rajaynayaa inay ku dhiiradaan inay Guuleed Real Estate ay xiriir la sameeyaan si ay fursadahan iyo fursado kaleba u helaan aad baynu u mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed waa hagaag daawadayaal iyadoo weli aad daawanaysaa barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa socdaalka cagta iyo Ankara iyo sharikadda Guuleed Real Estate ayaa qaybtani waxa ay tahay qayb muhiim ah oo aan u aragno Universal iyo Guuleed Real Estate ba in dadka Soomaaliyeed laga siiyo faahfaahin iyo
macluumaad dheeraad ah ee dadka ku nool dacallada adduunka ee iyagu arkay Guuleed Real Estate ee doonaya inay hanti ku yeeshaan waddanka Turkiga waxay isweydiin karaan waddanka ma deganidin sidee deganaansho ku helaysaan sidee xalkiinu noqonayaa ma keligiin baa lidin ogol yahay carruurtiinna ma loo ogolaanayaa iyo arrimo noocaas waxa aan fursad u helay inaan la sheekaysto gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Guuleed Real Estate mudane Cabdifataax Sheekh Xuseen idinkuma cusba oo wax badan ayaa qaarkiin ay dhici kartaa inaad la kulanteen qaarna aad shaashada Universal ka aragteen wararkii ugu dambeeyay aad dahateen soo dhawow Cabdifataax marka labaad qofka aan joogin Turkiga ee doonaya inuu halkan wax ka iibsado go'aankiisuna yahay inuu deganaansho ka helo sidoo ku heli karaa qofkii doonaya inuu ka qaato dhalashada dalka Turkiga waxa uu ogolaanayaa shuruucda waddankan inuu 4 qaab mid uu ku qaato dhalashada waddanka Turkiga tan koowaad inuu qofku hanti ma guurta ah qiimaheedu gaarayo $250,000 inuu dalka ku maalgashto inuu $250,000 uu banki dhigo talabayso waxay tahay work permit ama deganaansho shaqo inuu dalkan ka qaato ama shirkada ku leeyahay ama uu u shaqeeyo shirkadaha waddankan ku yaala taasoo marka waxa macnaheedu yahay muddo 5 sano ah in uu macnaha waaye canshuurta dawladda uu si toos ah u bixiyo xaqna uu markaas u yeelan doono in uu dhalashada waddankan ku qaato tan saddexaad waxay tahay in uu qofku muwaadin waddankan u dhashay gabadh ama gabadhu inay nin waddanka u dhashay ay guursato ama wiilku inuu guursado gabadh waddanka u dhalatay muddo 3 sano ay isqabaan taasna wuxuu ku heli karayaa muwaadinimada ama dhalashada waddanka Turkiga afaraad uu ku qaadan karayo dhalashada waddankan waxay tahay qofku inuu normal guri ah iska gato qarashku rabaan noqdo muddo 5 sano ahna uu ku qaato sabarlooga gurigaas deganaansho caadiga ah ee waddankan taasna waxay u saamaxaysaa inuu dhalashada waddankan u qaato وهجاك قفكم مركو وجري يشدو مدة أبتكتنا أنت على جارين دمع أوجلا أنت جري قاربه من مدة لو حجية ترتين على أنت ذي على تتكلم بس أنا نوفمبر يبسدي ديسمبر واسكسي يبكرا قفك جري يشدا بالك وصور له بس الشرع وسوريجو وحي كتب بيا وحق ليه إنه يبسدو إسلام ما أنت كتب بس ضرب يبسكرا وواحد قفك ما أملح بناية هاي وقت اللي حيرا يقول لي وقت هبل إلا لقى رجل قام يبيكت مجفته إلا أتوصل هين متكل وقوع عطسنا يو على شر كاس وقت معين ولي هاي وإلا 6 سنوات ما يبين كراي قفك أنا ما نضل شقاط قولي ما دام أتصل قلت المانتي وحي فاهنا قفور برنامج كان أنا وكأركن وحكيلي كرا طبعا لحريرته مدحضة شركة جوليد ريال استيت مدن Cabdifataax farintaada ugu dambaysa ee ku wajahan macaamiishiina gudaha iyo kuwa adduunka ee Soomaaliyeed iyo kuwa kaleba maxay tahay waxaan ku baraarujinayaa dhammaan macaamiisheena ku kala nool dunida daafaheeda ee shirkadda Guuleed Real Estate anoo ku hadlaya afkeeda waa mahadsantihiin Guuleed Real Estate-na waxay mar walba diyaar u tahay inay idin saacido idin soo dhaweyso wax walba oo baahiyaadkiina ku saabsan dalka Turkiga idinka qabtirto waxaan idinka rajaynaynaa inaad maaragtay nagala soo xiriiri doontaan social media-ka aan ku leenahay page-ka aan ku leenahay Facebook-ka iyo telephone number-radiskeena aad ku arki doontaan Universal TV iyo social media waxaan rajaynaynaa wax walba oo dalka Turkiga baahiyo uga baahan doontaan inay idinka qabtiri doonto Guuleed Real Estate waxay ku taagan tahay kana shaqaynaysaa danta ummadda Soomaaliyeed iyo qabtirta baahidooda uma shaqaynayso inay iyadu ay kaligeed wax faa'iido laakiin waxay u shaqaynaysaa inay wada faa'iido waagaag daawadayaal meel kastoo naga dhaanayseen intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa socdaalkii Cagta Xaaji iyo Guuleed Real Estate oo qaybtan aad ku daawateen warbixintii dheereed ee guryaha kala duwan ee mudane Farxaan Maxamed Doore gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate oo noo soo sharxay guryaha aad aragteen kala qiimaha ee kala duwan ma sha Allah iyo qaybta dambe shuruucda iyo nidaamka dadku hanqal taagaya dalkan ay hanti ku yeeshaan oo sharxiyay gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Guuleed Real Estate oo mudane Cabdifataax Sheekh Xuseen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan ugu noqon doono amaba Guuleed Real Estate sheekadooda inta ku dhamaatay way socon doontaa hadii alla ka dhigo waxa barnaamijkan la socoteen anigoo Maxamed Axmed Xaaji Cagwadhiga filim qaadaheena waxa ahaa
wiilka da'da yar ee liibaan cagbadhige tan iyo kulan dambe waa maxamed axmed xaaji cagbadhige oo idinle intaan u yarahay intaan u weynahay inta jinkii ama aan isku daadanahay meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu